Kooxda Atalanta ee reer Talyaani ayaa xalay ku guuleysatay markii ugu horeysay koobka European League taariikhdooda. 3-0 ayay kaga badiyeen kooxda Bayer Leverkusen ee reer Germany oo waayadii dambe wacdaro ka dhigaysay Jarmalka, iyadoon aan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin. Laakiin xalay waxaa qabsatay musiibo oo kooxda Atalanta ayaa 3-0 kaga badisay, waxaana Atalanta taas u suurageliyay ciyaaryahankooda reer Nigeria ee lagu magacaabo Luke Kaman, kaasoo 3 gool oo hat-trick ah ugu shubay kooxda Bayer Leverkusen. Daqiiqadii 12aad iyo 26aad ee qaybta hore ayuu ka dhaliyay 2 gool, halka markii la isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta uu daqiiqadii 76aad ka dhaliyay goolka saddexaad. Kooxda reer Atalanta ayaa xalay ciyaarta si weyn uga muuqatay, iyadoona inta badan ciyaarta iska maamulanaysay, halka kooxda Bayer Leverkusen ay ahayd mid isku dhex daadsan oo aanay ciyaarta ka muuqan. 51 kulan oo ay Bayer Leverkusen hore u soo ciyaartay, dhinaceeda dhulka lama dhigin, laakiin xalay waxay qabsatay dharbaaxsho kulul iyo khasaare xanuun badan oo ay kala kulantay kooxda reer Talyaani. Atalanta waxay u tahay markeedii labaad ee taariikhda intii ay jirtay ay ku guuleysato waxa la yiraahdo koob. Horey 1963 ayay ugu guuleysatay koobka loo yaqaan Coppa Italia, markaana waa markeedii labaad oo ay ku guuleysato koob, iyadoona xalay u suura gashay inay hanato koobka weyn ee European League oo ah koobka ugu sumcadda badan leh marka laga soo tago Champions League. Bisha Agoosto, Atalanta waxay la ciyaari doontaa midkood kii soo baxa Borussia Dortmund ama Real Madrid oo ku ballansan finaalka Champions League, iyadoona la ciyaari doonta UEFA Super Cup oo ay ciyaaraan labada kooxood ee kusoo kala guuleystay Champions League iyo European League, waxaana lagu qaban doonaa caasimadda Poland.